waan ka xumahay shalay alaabtii maanan qaadin. Shit, xalay waan dhafray, wax badanna ma qabsan. Kaba sii darane natiijada imtixaankayga aad bay u hooseysay. midaan iyo kuwo kale oo sidoo kale la mid ahba way dhici karaan haddii maamulka waqtigaagu uu faraha ka baxo. muuqaalkaana waxaan kugu tusi doonaa hab yar oo fudud oo aad ku maamuli karto waqtigaaga. waqtigaaga ayaa waxaa ku maamulaysaa hab yar oo fudud adigoo taleefankaaga isticmaalaya. tusaale, markii aragtay jadwal inaad samaysato ama nidaam jadwalaysan, buug iyo warqad ayaa soo qaadataa, sax? laakiin adigoon warqad iyo buug waxba soo qaadin ayaa waxaan ku tusi doonaa in nidaamka waqtigaaga aad habaysato kana dhigto mid jaan go'an. taleefankaaga ayaad ku samayn doontaa, mana dhici doonto in waxyaalo fara badan oo aad u fara badan aad ka hasaabto. haddaba si aan muuqaalkan kuu tusi, waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan in la garayso si saaxiibo badan uu gaaro. ila daawo farsamada. waa kana abka Play Store-ka ayaad kala soo degi kartaa. linkiga ayaan qaybta muuqaalka hoose kuu soo dhigay. ku dhufo. si barnaamijkana u isticmaasho wuxuu kaaga baahan yahay inaad akoon ku furto. tusaale, aniga waxaan ku furayaa mid ka mid ah Gmail-ada aan wax ku kaadsado. markaad ku furto Gmail-kaaga adoo dhahaya sign in with Google, toos ayuu ku gudbinayaa. wax yar ayaa sugaysaa inta uu gudaha u soo galayo, kadibna toos ayaa u shaqo galaynaa. markaad barnaamijka soo dhex gasho qaabkan ayuu u egyahay. bal haddii aan dhinacan fiirino, waxaa ku taala qaybo fara badan oo loogu talagalay inaad wax ku shaqaysato. aan ku bilaawno. shaqo ayaan rabaa inaan maanta qabto. calaamadan geeska ee blasta ayaan taabanayaa, kadibna taska ama shaqada aan qabanayo magaceeda ayaan qorayaa. tusaale, alaab soo qaadis aan leeyahay. alaab soo qaadis markaan sheego, waxaan halkan ku cadeynayaa alaabta iyo noteska, yacni alaabtan waxyaalaha aan ka soo qaadayo oo kale. tusaale kale waxaan rabaa inaan soo qaado marka koowaad computer, marka labaad waxaan rabaa inaan soo qaado, marka labaadna waxaan rabaa inaan soo qaado mobile oo kale. marka intaas samayso, halkan waxaa ka dooranaysaa project waxa la dhaho. yacni project waxaa la dhahaa adeega ama shaqada aad qabanayso wax la xiriira project ahaan. hadduusan ku abuurnayn project, waan ku tusiyaa sida loo abuuro. aniga waxaa ii abuuran project loo yaqaan xaliye. halkan waxaa la status xaaladda, yacni waqtiga aad rabto inaad qabato. tusaale, waxaan rabaa isla maanta inaad qabto. haddii aad rabto next action ama near future waad dooran kartaa, laakiin today ayaan dhahayaa. priority ayaa dooranaysaa oo ah waqti, yacni waxaa muhiimadda ay leeyihiin. tusaale, waxaan leeyahay high priority ay yihiin, kadibna waxaan leeyahay save. markaan save dhaho, automatically alaabta way save gareysmatee, laakiin ima soo muuqanaysa. maxaa jira? si kugu soo muuqato, waxaad tegaysaa meeshaan loo yaqaano today. markaad tago, waxaa ujeedaa alaab soo qaadis. halkan alaab soo qaadista ah waxaa ka muuqato inay tahay, haddaan ku dhufto, inaan soo qaadayo alaabtan, computerkan iyo mobilkan. shaqadan waa high priority. haddaan halkaas saxda saabto, waxay ka dhigan tahay shaqadan waan qabtay. automaticna waa laga saari doonaa. lagama yaabo inay jiraan shaqooyin aad waqti walba qabanayso. sida halkan uga jeedid, anytime waa shaqooyinka xilli kasta aad qabanayso. waxaad taabanaysaa plus shaqada aad maalin kasta qabanayso. tusaale, waxaan leeyahay wardi, noodka ayaa raxsiisanayaa shay ama qoraal, kadibna project ayaan kasii dooranayaa. projectiga waa iska dhaafi kartaa, wax weyn maahan, laakiin statusku wuxuu ku yahay anytime. priority-gana waxaan leeyahay high priority, kadibna save. marka save dhaho, wuu iga diidi doonaa sababtoo ah project ima save garaysnaa. projectigii ayaan save garaysanayaa, kadibna save aan leeyahay. halkaas ayuu igu soo saari doonaa waqti walba in laga rabo wardi ayaa waqti walba laga rabaa, sida halkan ku cad. tusaale, haddaan mar kale halkan furo, waxaa ujeedaa qayb ku qoran tahay today, next action, near future. mid walbo waqti ayaa saarayn kartaa, kadibna waqtigaas ayaa halkan kala socon kartaa. soo cajiib maaha? project gaar ah inaad shirkad u qabato, aad project ayaa leedahay. project name-ka magaciisa soo gelinaysaa. tusaale, waxaan leeyahay waxaan project rabaa inaan u diyaariyo ama shaqo inaan rabaa u qabto shirkad loo yaqaano Somlink. kadib ogow, haddii ay dhacdo in
aad barnaamijkaas isticmaasho, barnaamijkaas waxaa ka horeeya inaad adiga go-aan ku qaadato in aad hawshan qabato. haddii aad naftaada ka adag tahay go-aanna aad ku qaadato hawsha aad qoratay ama aad balangaraysatay inaad qabato, waad qaban kartaa. kumaas daawashada muuqaalkan si gaar ah ardayda jaamacadaha, iskuulada iyo kuwa wax bartay iyo kuwa shaqeeya ayuu anfacayaa. gaarsii saaxiibadada si ay wax uga faa'iidaan. waxaan ku rajeynayaa gool wacan.